السلام عليكم كسر دواذا برنامج كسومالي نيوز برنامج كانوا ما أنت وحنا كسب سنة هي دور لأن يراد الصومالي ذا كعياران بالشدة يكون حجران مثل الصباح هاته برنامج كيا ما أنت وحنا كوريسان دونا لبنان أو صوماليا أو دتك صوماليا يكونوا ودن كان دان مارج مقالة أوهوس لبعض سنين أو كلا محمد جامع سويان يو أول عبدي فارح عدى oo labaduba ay saan hore idinku sheegay oo istakan ku soo dhawaada barnaamijka barnaamijka intaanan sii balbalaarin waxaan jeclaan lahaa bal inaan ogaado inaad wax nooga taabataan bal noloshiina guud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم haddaan marka u horeysa aan ku hormaro bal nolosheena tii hore iyo tan aan hadda halkan ku jirno magacaygu horta waa maxamed jaac sooyaan sida hore la idinku sheegay noloshii hore iyo nolosha halkan aan ugu nimid way kala gedisan tahay oo markaan wadankaan nimid iyo markaan Soomaaliya ku noolayn farqi baa u dhaxeeya Soomaaliya si baan u noolayn halkan si kala looga nool yahay tusaale ahaan Soomaaliya u noolaan jiray dadka Soomaaliyeed sidoo intooda badan wax wala dhaqato waxa laga yaabaa magaalooyinka dadku way ku yaraayeen dadku xoolay lahayn ama beeraley waxa laga yaabaa dadka in ay wax baran jireen familka ka kooban 10 qof laba ama saddex inta kalena aysan jaanis u heli jirin noloshaas baa Soomaaliya ka soo jirtay comparison madan u sameeyay halkan mid ka jirta midaan ka fakarahay waxay ahayd bal inaan gadaal u fiirino bal cilmigaad soo baratay halkan waxaad ka qabatidii yani noloshaas taasaan dhinacaasan ka fakarahay bal dad ay ku soo tagaysanaad marka hore haddaan wax barashada taariikh nololeedkayga ka warramo anigu si Soomaaliya waxaan ahaan macallin baan ahaa dugsiyada dhexe qoladii ugu horeysay xalan labada sano ku jirtaan ahaa oo 87 iyo 80kii labada sano xalan ku jiray waxaan naloo tababaray inaan dugsiyada Soomaaliyeed wax ka dhigno xagga luqadda Carabiga muddo ka bacdi yaan mataqaana muddo markaan ku shaqeeyay yaan haddana ka bedeshay oo aan khaliijka iyo halkan aan u safray ka bacdina dagaaladii wixii baa dhacay kabacdina wadankan baanu nimid oo intii 20 sano ku dhow aan ku noolaa noloshu saasi u kala gadisnay noloshaas u kala gadisan tahay haddaan iyadana bal sidoo kale aan su'aashaas awil aan weydiino bal noloshaada maxaad nooga taaban kartaa intii adiga aad u malaynayso inaad ka taaban kartid bismillah aad baad u mahadsantahay cali horta kulli waxaan isku tirinayaa dad nasiib darrada ku dhacday qayb ka mid ah markii Soomaaliya indhahan soo kala qaadnay oo isla waaga idin bari dagaalada suuqayga dhacay Soomaaliya aniga waxbarashada dugsi sare ka badnayn heer jaamacadeed ma aanan gaarin runtiina yani nolol fiican iyo mustaqbal baa noo muuqday oo aan islahayn maanta baad adduunka waxna ka baranaysaan doorna ku yeelanaysaan dagaalada suuqayga dhacay waa soo qaxnay wadamo badan baan soo marnay ilaa iyo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Sacuudi Carabiya iyo Ethiopia iyo Jarmalka iyo waxaan soo marnay maxaan ku raada hatta Ruushka iyo halkan ilaahay waan nabad keenay wadankan Denmark baan mid soo dhaweeyeen aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa bulsho waxaan u nimid runtii gacan qabow nagu qabatay si fiican noo soo dhaweysay albaabada noo furtay hadday waxbarasho tahay iyo hadday nabadgelyo tahay iyo hadday dhaqaale tahay يعني سيدا يجو نوليهين أنا أمرانو أدمر نقوم هذا علينا وحنا أمرينا إنه ما ضيع الدوام مركانو Soomaaliya aan ku fakarayna ama dib ugu noqono adduunku iskoos kale way gelin baa la yiraahdaa halkan iskuul ma ka galay aan ka shaqeeyay wada goob aan bartay waxbarashada markaan dhameeyay ganacsi baan hadana u leexday basaar baan dukaan ka furtay waxaan isla dhinacaan fiiri kadib Soomaaliya waxbarasho u aaday waxaan u aaday shaqo u aaday 2007 bishii April 18 baan Denmark ka tagay
haddaan ku soo noqday intii kale waxaan ka shaqaynayay Soomaaliya qaybahaas bulshada Puntland baan ka shaqaynayay project weyn oo la yiraahdo Run Africa ayaan waxaan ka ahaa manager ka ahaa waxbarashadan ka shaqaynayna iyo biyaha caafimaadka waxaan ka gaarno wasaaradda waxbarashada Puntland waan la shaqaynay runtii waxaan qaban karnay waan qabanay waxaan umada tiri karay waa taray laakiin hankii wali meesha ma joogin wali ma joogo halkaan aan ku soo noqday project weyn ma sameeyay la yiraahdo Somali Gather Bonds project يعني ilmaha dariiqa yaa loo Soomaaliya waan cidna يعني dan kala hayn ayaan baahidii waxaan kuwan baa lagu dari karaa waa su'aasha labaad oo raba ma artay inaan balan gadaal ugu soo halkaasna wali waan wataa inaan يعني wali bulshada inaan wax sii taro wali dhinac waxbarashada ayaan jeclahay anigu inaan baahidayda wax qabadkayga inaan u leexiyo bulshada Soomaaliyeed ka taageero insha Allah waana hawl aad wanaagsan waxaan rajaynayaa ma artay fikradaas wanaagsan oo aad meesha aad sheegteen in halganka aad soo gasheen in dad badan oo Soomaali ay idinka arki karaan oo idinka يعني oran karaan okay raadka aad raacdeen dadkan raaceen ana raacno waxmaad ku dar lahayd halkaas waxaan ku darayaa anigu Denmark waxa aan ka qabtay ama sidaan ku imid ma aanan sheegin in soo rafaaday oo ilaa iyo Russia dhulkaas tagay buu ahaa iyo Germany meel ka soo maray aniga automatically Denmark anoo Nairobi jooga ayaan humanitarian ayaan noo soo qaadeen Geneva Convention laanka ama ku nimid wadankan si fiican buu noo soo iisoo dhaweeyay run ahaantii airportka marka soo taxi baa ay taagna xaaskayga igu soo rasaal igay weligeey noloshayda ma ilaaway Denmark sababtoo ah waxaan isleeyahay wadankaagi hooyo markaan mararka qaarkood aan waxyaabaha aan soo marnay Soomaaliya soo aragto waxaan isleeyahay Denmark baa wadankaagi hooyo ah laftiis ma ha ahaado laakiin kii hore waa ka hormarin lahaa inkastoo dee laba jinsiyadood aan helayo dee Soomaaliyana aan ahay wadan Denmarkna aan ahay qof mataqaana Danish aad iyo aad bay wadanka Denmark noo soo dhaweysay shaqo haday noqoto waxbarasho haday noqoto nolol haday noqoto aadna waa ugu faraxsanahay noloshiisa mid aad wanaagsan weeye run ahaantii dad badan baa laga yaabaa moogta inaysan wali saa u fahamsanayn ma aragtay doorka weyn oo bulshada ay soo dhex galeen uu ciyaaray bal haddaan gadaal ugu soo noqdo hadda awil waa adaa wax ka taabtay يعني hawlo badan baad ka fulisandaan marka hadda joogtaan sidaan ogahay yani ururada madax u tihiin ururadiina waxaan ogahay maarta inay yihiin ururada ugu firfircoon degmadan aan deganahay ee Ows waxaan jeclaan lahaa bal inaad isku dayaan wax ka taasoo gaabisaan oo wax ka taabataan hawlaha aad fulisaan ururadiina ay qabtaan maxaad ka oran lahayd arrintaas iyada haddaan aan ku hormaro anigu waxaan chairman ah urur la yiraahdo Godob Relief Society Godob waxyaabo badan bay ka qabataa wadan gudihiisana active ay ka tahay oo hawlo badan bay ka qabataa xagga ilmaha ay haweenka aad u caawisa waxa jirta election year aan sameeyno ilmaha aan ku caawino hooyooyinka shirar badan oo aan qabano anagoo baraarujina si ilmaha waxbarashada hore loogu marin lahaa waalidiinta iyo ilmaha kala talina wadan gudihiisa waxyaabahaas ugu badan waxaan ka qabano waxaan kaloo aan ururkeen uu sameeyaa wuxuu caawiyaa Soomaaliya Puntland khaasatan alaabo far badan baan u dirnaa oo xagga isbitaalaadka iyo waxyaabaha dadka curyaaminta oo kala gadisan haday noqoto xagga sariiraha kale iyo xagga isbitaalaadka qalab nooca isbitaal uu ku shaqeeyo aan u dirin ma jirto inkastoo dadka disable-ka aan u badan lahay alaabada aan geeyno waxa kaloo jira iskoolaadka ayadana waanu caawinaa ilaa iyo 4 iskuul baan waxaan u geynay qalab waxbarasho oo isugu jira nooc kasta kuraas haday noqoto sabuurada haday noqoto yani wax kasta oo waxbarashada ku saabsan hadeer waan wadnaa hadeer bishii hadda aan ku jirno ilaa iyo hal container waxaan u diray ururkan u diray ilaa iyo 40 feet ah oo qalab waxbarasho oo isugu jira kombiyuutarro qalabkii iskoolaadka iyo kan isbitaalada oo dhan isku jira haday noqoto isbitaalku de nooc kasta uu leeyahay qalabku isagoo isugu jira weeye
حتى قلبك ومتقنا قفك الوجهري راجدو كلا كمدا وكجران قاركود قلب فربضان عن سومالي لغينو أسلينا وحبي تريان بان أودرنا إلا هدنا واونا وحانا نو قرشيسان إن مستقبل كدير أرنت أرن كبلارنا سيونا إن شاء الله سيونا وطرنانتي وحيالها تشيغيسا وحي يعني باهي Soomaalidu ay qabto oo loo baahan yahay maartay waligaan u maleyn ma ayaamahan soo socda inay ka dhargahayaan baahi weyn bay wali sii qabaan awil aduguna bal taawanoga naftiisu doo weyn buu ciyaara la yiraahdo Somali Stray Children Association ayaan runtii forman u ahay ujeedada ugu weyn marka hore uu sameeyay wuxuu ahaa Soomaaliya iyo dadka hadda aan ka sheekeynayo dhalinyarada ah oo aan xuquuqdoodii waxbarasho aan helin inaan ku gacan siino isla mar ahaantaas markii halkaan aan Denmark fiiriyo lafteeda waxaan si gooniyo u fiirshay xaafadan la yiraahdo baqaan iyo Tofsoy iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo aan oran karo dadka dhalinyaradooda maanta dadka waxbartay dadka ugu fiican baan oran karo Denmark ku nool haddana aad moodo xogaa statuska iyaga inuu hooseeyo wax walbana waxa laga soo dhisaa salka iyo beeska hoose inaan isir waxa banaan isku xirkii faamilada iyo qoysaska iyo dhalinyaradii iyo waalidiintii ummadda Soomaali inay noqoto waxaan la yiraahdo maxaan ku raahdaa yani bulsho isu xiran bulsho isku tiirsan bulsho mid ah bulsho isku tashan karta bulsho qofka kale uu yani ku tiirsan karo bulsho qofka kale uu caawin karo bulsho isu gudbin kara aqoonta ay leedahay kor u soo qaadi karsa statuska ay leedahay kor u soo qaadi kara mujtamaca ay la nooshahay ka dhex muuqan kara iyaguna bari wax qabsan kara waxaan sameynay shirar aad u fara badan si taas loo helo si looga wada hadlo dhibaatada jirta si loo helo isku xirnaan si meesha aan ka liidan aan ogaano si aanu muraayada isugu fiirno inta aanan yani dadka kalena fiirin arrintaas shirar badan baan ka qabanay bulshada wax badan baan isugu yeernay dhalinyarada iyo waalidiinta iyo dhammaan waa is aragnay yani runtii waxay noqotay wax loo baahan yahay oo ah meeshii kaliya aanu ka jirnay solidarity baan u baahanahay haddaan Soomaali nahay midnimo aan u baahanahay waxaan u baahanahay inaan gacmaha isqabsano waxaan u baahanahay qofka kale inuu caawiyo waxaan u baahanahay dalka aan joogno inaan ka faa'iideysano waxaan uga faa'iideysan karnaa in qof walba uu gudbiyo qofka kale wuxuu ku dhaamo halkan dhalinyaro joogto Soomaaliya dalka wax ku barteen waxbay yihiin waa inaan isticmaali karaa hatta dhalinyarada iyada waxay yihiin waa inaan aqoontooda la soo bixi karno waa in waalidku ogaan karaan inay haystaan resource aad u qiimo badan oo dhalinyaro la yiraahdo dhalinyarada su'aasha soo socotaba weeyaba horta taas aad ka hadlaysaan mid aad iyo aad muhiim u weeye yani baahida Soomaalidu qabto ma ahan inay Soomaaliya kaliya ku sugan tahay yani baahida Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed iyo gaar guud ahaan dadka Soomaalida ay qabaan yani meel walba ka jirta yani waxaan loo baahan yahay dad hogaamiye ay u baahan yihiin su'aasha igu xigta aan weydiin lahaa waxa weeye sida barnaamijkeenu ku salaysan yahay ogtihiin ba yani dhalinyarada doorka ay ciyaaraan marka waxaan jeclaan lahaa bal inaan dhalinyarada Soomaaliyeed doorka ay ka ciyaaraan bulsho kisto ay ku dhex jiraan yani hadaad rabtaan gadaal baad u noqon kartaan oo yani waagii hore dhalinyaradu say soo ahaan jirtay taariikhaan baad gadaal ugu noqon kartaan ilaa halkaan ka timaadaan xilligan hadda aan joogno 2012 حاول الآن هو هرمانية. على أد بدو ما حسنتها. أنا كتاريخ خان وحلنا بلشوا أولسن إني كفا إذا استر على يرضى. حدام كهر مرو قبل يربح ترى أما ما عمد كستوى هالوادو. لا بهية. وحلا يرى هذا قبل يقول واسكون نركز لك مد بالس وقعته. ويل مركو لبيه تبان شري هي حدو لا أهان وايو. رجعنيمو لديت كم شرتي لعيه أو قاعدة. معناه هذا وحويه لبيه تبان بمركو سوقار ويلك أما قبل حدو دور كيسي قادم وايو. يعني كم شر ماشى تكفير الناس ما نسوق قل دونه. إسلام رهان تصوح كتوسة سامرايد مركز كفيريو. لبيه تبان قف كسوقارا إنه يهي مسؤولية ديس إنه سوقاري. دنمارك بوبرتيت مركز يرى هذا. بوبرتيت ماشى وكبروا ذا الماء شان يتبان. صدق يتبان بويلش الأفر يتبان. أما لبيه تبان بده. قانقار كيس مش كسب بلعبنا يوي. مركز الأرك قف كاس إنه قانقار كيسي بلعبي. هدي الأرك إنه سنبرشة كالنت في عند كتير. يرجلين بالغ دقيقة ولا يرجلني. وحال الربع إنه دب ونقضوا يرى هذا باص كاك سوبوه. قف المسؤولية بولها. حدا نسيق هذا إنه ويلكو جوربو كتير قريتي يا كبر.
markay da'aas jiraan markay da'da jiraan absolutely qaangaar bay ahaayeen mas'uuliyad leh oo la yaqaano mas'uuliyadda meesha kaga jiraan bulshada nin walba wuxuu ku faanay inuu dhalinyaro leeyahay bulsha waxay ku horumartaa oo wax ku qabsataa inay dhalinyaro leedahay bulsho aan dhalinyaro lahayn horumar ma gaarto waxna ma qabsato because ma leh mustaqbalkii berri baa meesha ka bannaanaanay laakiin bulshada mustaqbalka leh waa bulshada dhalinyarada leh dhalinyaraduna marka waa in loo diyaariyo ama looba diyaarin jiray weligeed inay noqoto dhalinyaro bulsho dhisan isku tiirsan muuqata wax qabsan karta wax berrina wax noqon karta marka bulshadu weligeed halkaasi dhalinyaradu kaga jirtay meeshaasina weli kaga jirta haddaan Denmark soo noqono intaanan Denmark ugu imaanba waxaan jeclaan lahaa midaan haddaad raacin lahayd yani taariikhdii dambe gadaal haddaan Soomaaliya ugu noqono Soomaalida doorka ilmaha dhalinyarada Soomaaliya ay ka ciyaari jireen hadda cawl u taabtay 12 qofka markuu gaaro gabayga bay ka muuqatay soo ma jeedid Denmark markaa joogto 18 sano marka la gaaro la yiraahdo qofku waa qaan gaaray soo ma jeedid halkaan waa 12 marka mas'uul weyn baa saaran markuu da'aas jiro maxaad baltaa raacin lahayd arrintaas ayada intaan u soo noqon kale waxaan ku dari lahaa Soomaaliya ilmuhu markuu 6 sano uu gaaro horta marka ugu horeysa yaraantiisa ilmaha Soomaalidu waxa lagu barbaariyaa mas'uuliyad ilmuhu markuu 6 sano 7 sano jiro reer dhan buu wuxuu yahay hawsha ugu muhiimsan مثلا Soomaaliya waxa la dhaqato ilmahaas yar xoolahaas qayb kamid ah مثلا amba ariga ha ahaato ama loda ha ahaato qayb kamid ay ku aadiya waa ilaalinaya waa xanaaneynaya iyadoo aan waxba ka maqnayn buu keenaya mas'uuliyad weyn buu dareemaya ninka 7 asagoo jiray xoolo dhan iyo yani hawl dhan qaban jiray markuu 12 gaaro ama 13 gaaro wuxuu isku diyaarinayaa in uu asagu reer yeesho gaar isku dabiro halkan waxa laga yaabaa markaad isku eegti comparison markaad sameeysi farqi weyn inuu u dhaxeeyo oo leedahay war dadkii waagi hore noocan ahaan jiray see ku dhacday maanta si ahaan waayaan ayagoo 20 jira inaysan waxba kala garanayn marka Soomaaliya ama dhalinyarada Soomaaliyeed markii taariikhdii hore ee Soomaaliya laga hadlayo 12 sida gabaygu uu sheegay ninkan saaxiibkay oo xawl waxa mas'uul nin gabayaa wuxuu ku leeyahay wuxuu tusaya meesha uu taagan yahay marka waxaan qabaa dhalinyaradu waa mustaqbalkii ummadda ahaan jireen markii xataa Soomaaliya joogay anuu midaan ka fakarayo waxaan sii raacin lahaa taas waxa weeyaan idinka idinku sii daray intaan u imaanin xilliyada dambe yani marka loo fiiriyo hadda waxaan ka hadlaynaa taariikhi ahaan baan ka hadlaynaa dhalinyaradu Soomaaliya doorka ay ka ciyaari jireen yani reerka haddii odagii aaba dhoofo yani waxa jiray maartay wiilka ugu weyn inuu reerka isaga u ahaa maartay hogaamin jiray حتى marka qaar kood waxa dhici jirtay xataa hadii ilmaha qaar laga soo dacwoodo ama in asaga xataa hooyo aan la hadlin oo asagii la weydiiyo wiilasha gaar ahaan sababtoo waa laba habkan u la dhaqmi jirnay loo dhaqi jiray loo barbaarin jiray ilmaha waxa weeye yani gabdhahana habbaan u barbaarinaa wiilashana nooc iskana u barbaarinaa ma ogta marka waxa weeye wiilashu run ahaantii gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed door weyn bay ciyaari jireen markaad u fiiriso bal hadda dan sii wadna arrinta ayada يعني واجه هذا حتى كلام وضعوا كرتان دارتي ولي دينا دمايسترينين هدي أن يعني واحد يردو تشلع شركي قبل وجوكتو أما قبل وجوكان waxay ahaayeen reer noloshoodu ay dhameystiran tahay si marka loo fiiriyo oo yani kaabayaalkii dhaqaale iyo cududeed ka dhisan hooyadaas ma dareemayso haba yaraatay inay ama cidlo tahay ama wax ka dhiman yihiin ama yani hawsheeda ayna dhammaystirnay dhinaca kale reerka wiilku u joogana saas oo kale wiilkana booskii aabaha mar walba markii meesha adugu ka maqan yahay isaga buuxinay hadduu adugu dhintay isaga booska adugu jooga hadduu dhoofa isaga booski jooga hadduu maalinta guri ka maqan yahay isaga gurigi jooga oday ka ah ninka loo imaanayo oo yani maalintaas la rabo booskii la martinaya isaga way haddii habartii meel aado oo hooyadii maqan tahayna gabadhaas 12 sano jirta oo soo gaartay wixii hooyo looga baahnaa iyada diyaarinaysa oo reerkaas hooyadii kama maqan dhinaca suugaanta ay halbowlo u ahaayeen
يعني dhinaca haddii la yiraahdo dhaqaalaha kaabayaalka ahaayeen oo reerka dhalinyarada leh waxay ahaayeen reer dhaqaalahoodu u dhisan yahay shaqay kugu maqan yahay hadday beer tahay hadday xoolo dhaqan tahay hadday dukaamadii tahay yani dhalinyaradii ayaa buuxinaya kaalin walba oo qofkaas uma baahanayo inuu shaqaale u yeerto kaleeto way isbuuxinayaan maraykanka waxaa la oran jiray gobolada qaarkood gobolada konton iyo la guursadaan ninka rabo dhaqaale badan sameeyo buugta hadda maraykanka qaar badan baa qoran historigaas ninka hadduu rabo dhaqaale badan naga badan ha guursado inaga taa diiniyanba nooma ogola laakiin resource waa isbuuxinaya wey macnaheedu dhaqaale badan baa tabcaysa marka dhalinyaradu reerba intuu ka dhalinyaro badan yahay wax soo saarkiisa xataa waa ka badnaa cudud ahaanna waa ka maqan dhisma ahaanna waa ka dhisnaa marka absolutely annaga dhalinyaradayda Soomaaliyeed marka qixin ugu dhacay iyo waxyaabo ku horeeyo dalku leecay ayay fursadoodii dhalinyaran meesha ka baxday ciidan baa loo adeegsaday oo imaanayna taas su'aalahaas waa dalban marka yani waxay ahaayeen kaabaha dhaqaalaha waxay ahaayeen kaabaha aqoonta waxay ahaayeen cudud reerka bay ahaayeen waxa kale oo umada ku faaneysay oo tiirka u ahayd dhalinyarada ahayd يعني مدان هذا أتكوّد هذا ليسان إذا يعني آديات ونكسن وأنا آديات وفرح سنة هيدا لأن الصومالي مركز مقالان إنه يكبر روجان ومدان وي سو مجيدي سوت واحد ويباهذا الواقع بعد لأن الصومالي إنه مسؤول ساران أي لفته هذا يعني واحد من لقى مرمانه إنه سأفهمان يعني ماهن وحوم ماهن موقت إنه المه أنت لا سكر على بناه سكر على هي صوم ماهن ويلشوا يقبلها بقى مركز فيروسه لأن الصومالي weligeed waxay ahaan jirtay cududii reerka ay ahaan jirtay marka mid laga maarmayo marka waxaan jeclaan lahaa rajaynayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee daar maar ku nool oo dhaqankeena aan aqoonin ilmaalkan lagu dhalay aan ku dhalay ma yaqaanaan waxaan ka hadlaynaa hadda yani waa la yaab qaarkood hadda markaan su'aashan ah markuu qofku 12 sano gaaro isagaaba mas'uul noqonayo reerkii mas'uulka marka la yiraahdo qaarkood waa yaabayaan mujada laakiin way ku baraarugayaan ma waqti saan aniga dareemayo وحمية ترى عين هذا المدير كفتنا كذا وحلاقي يا dhaqaalaha la isku xifaalan jiray waa hebel maxaa tacabtay yani maxaa soo qabatay baa la oran jiray ninka hadii la arka baabuur waaweyn soo shaqeynayna ama guriga uu wuxuu oran jiray afar dhalinyarahan anigu wax baray buu oran jiray ya afar dhalinyaraha wax barto kuwaasna wax barashadooda anigu kuwaas dhaqaale ah buu oran jiray marka kuwaas ku faanay waa dhaqaale gelin yani aniga xataa soo saaray way aniga soo saaray waxay wax ku tarhaya bulshada iyo dalka bulshadooda wadankooda ku tarhaya marka taasi ma waxba si raacin lahayd Soomaaliya مثلا تصالح يردان سوق هذا هذا كوربان إني أنا سلا شقين إنه لانشة وحي إني الصومالي محي يقول ستة أفر نعوض هذا المه ناقتاسي الماء دلسات تناين الماء دلسات المه جاو حسينية الصومالي إنه وحي كل حساب تمنيسا وحي كل حساب تمنيسا الماء وحصو صار كود وهي ناقتها الشن الموضوع اللي هذا هي حولها nin kasta qayb uu qabsanaya oo reerkii wuxuu noqonayaa reer ballaaran oo isku filan oo wax soo saarkiisa dhan kasta la yiraahdo haday beer noqotay haday xoolo noqoto waxa halka ka arkaysaa marka dhalinyaradu khaasatan dhalinyaradii hore ee Soomaaliya marka laga sheekeynayo waxay ahaayeen 6 sano markuu joogo qofku wax soo saarkiisa isaga diyaarsan jiray taariikh bay ahayd oo dadka Soomaaliyeed dhan waa ogyihiin لكن وحال يابا إن 20 سنة جرو ولي هذا وين هالكان جوا أنتاس كبرارو سنين ومن يابا هذا ضاد بل أنتاس السير راعنو on Soomaali xasuusino yani SYL yani Soomaaliya isu halgamay dhalinyaradii Soomaaliyeed baa isu halgatay wadanka waxa wadankii Talyaaniga cayriyay Ingiriiska cayriyay yaa ahaayeen waxay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed yani SYL baa ku muujinaysa soo ma jeedid marka dhalinyarada Soomaaliyeed يعني دورك أي عياران مت أي صوع عيارين حتى مت سهلا ما مركز تا أنا وصي وضع هي يعني واحد جعلنا إن نصير راعيه لأن يراد الصوماليات محيك قبتين هو جانك وطنك هو جامنت وطنك الصوماليات محيك قبتين يعني وطنك الصوماليات رونهانتي وأنا قلنا هاي ظروف بصومرة أيامها عندنا بعد تنقي سنة كولا تنقي سنة دم قدام بيسي وصومرة يعني دول الآن بهيستي مركز تراهضه دورك اللي بaahan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed xagga hogaaminta maxaad ka oran lahayd idinku xataa gadaal ugu noqon haya Soomaaliya xaaladeeda soo tahay iyo xataa 20 sano u dambeeyay soo tahay waxaan oran lahaa inuu kulleeyba hadan caawl uga hormaro isagana uu igu xigi doona insha Allah
hoggaanka Soomaaliya markaan ka soo bilowno gobonimo doonkii SWL 13 SWL niman dhalinyaro ay ahayd maalinta laga soo bilaabay ka horba halkan dheer bay dhalinyarada Soomaaliyeed u soo galeen gumeysiga ceyrintiisa bay qayb libaax ka qaateen wadanka horumarintiisa ay ka qaateen wax hadda ragga hogaaminaya mataqaana dawladdan hadda cusub ragga dhalinyaro badan yihiin aqoon-yahana يعني kuwa hadda hoggaanka la wareegay marka dhalinyarada Soomaaliyeed hoggaanka wadanka iyo gobonimadii Soomaaliya helideedaba qayb bay ka soo qaateen waxa la yani la inkirin kara maahan waana waxa yani lagu soo koobi karo walaysi 2 iyo 3 ma ahan baan filayaa xawil ku soo dhawaa horta meel cali oo kuma santahay SWL baad ka soo bilowday waa wax aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeedna taariikhdeedu taariikh fog weey waxyaabo badan waxa la isweydiiyaa Soomaalida maxaa yani heerkan yani maxaa reemiga ka dhigay maxaa reer guuraha ka dhigay maxaa yani sidan u celiyay markii loo fiiriyo wadamada deriska xadaaradooda marka la fiiriyo Ethiopia oo kale boqol iyo 25 boqortooyo soo martay baa la yiraahdaa adduunka meel soo martay in jirto u maleynaya deris bayna la tahay dadka Soomaalida waxa la yiraahdaa waxay ka yimaadeen asalkoodii goboladan la yiraahdo Berber la isku oran jiray oo waqooyi galbeed iyo waqooyi bari Soomaalidu halkaas asal ahaan ka timid baa la yiraahdaa asalkeedu marka marraba inaan ku dheeraado magaalo ka soo bilaabatay xeebaha ka soo bilaabatay laakiin dad laga awood roon yahay ahaayeen Soomaalidu mar walba dad la barakacay ahaayeen mar walba ka xog roon ka cayriyo marka miyiga ku qaxi jireen Soomaalidu qaxbay u aadi jireen ilaa magaaladii iyo badihii iyo meeshii magaalada ahayd waa laga ugaarsan jiray maadaama qofkuna hadduusan isku awood isku filan mar walba hadduusan lahayn uu ku khasban yahay meesha ku badbaadiyo inuu aado Soomaalidu intaas iyada dalka hoggaan u ahayd SWL baad ku soo sheegtay anu noqon saraakiisha Soomaaliya ciidamada Soomaaliya ay ahaan jireen wada 20 jir ama 18 jir bay hoggaan saraakiisha ciidanka ku noqdeen oo heerka soo gaarsiiyeen intii ka dambeysay haddaan u soo noqdo burburkii halkaas waxaan oran karaa Soomaaliya dhalinyaradoodu waxay galeen yani suuq waxay ku qormeen bug madow bay ku qormeen dhalinyarada Soomaalida 20 sanadood intii aan helinin يعني كان سهل إني برنامج أصاب حان أو ودمada nabadgelyada reer galbeedka kala soo galin يعني waxa la oran karaa يعني hameen madow ba u dumay dhalinyarada Soomaalida sababtu maxay ahayd mustaqbalkoodii wuxuu ku dumay in ama war loo adeegsado oo dagaal galiyo ama inay qaad bartaan ama waxyaabo ka xun inay galaan sababtu waxa weeye hoggaan ay ku hirtaan ama lahayn dal nabadgelyo ku noolaan karaan ma jirin iyagina xog farasho soo kacay bay ahaayeen marka يعني 20 سنوات umad Soomaaliyeed waa ka maqan tahay dhalinyaradood halkaas waxa ka soo gaalay yani damage walgood ka soo waqsanay ka soo qaad hadda Denmark baan ku noolahay iyo taa adoo ku wata mid hadda dhalinyarada Soomaaliyeed inay yani wax qabadkii laga filhayaysan aysan ka soo bixin bal haddaan barbar dhigno yani waxyaalaha ka dhacaya wadamada Carabta wadanka Masar iyo wadamada agaarkaas ku yaala fujiday waxa ka dhacay yaa kiciyay dhalinyarada kicisay يا كي انقلابيان وين وصعدة جوردن بحرين محوها وضمدا يعني إنك صوت قاركود هذا كوجو ليسن ولي هذا مصر وكوجو ليسن ساد أكتين بقى يعني وضمدا ما يقول واحد كعيان لأن يردوي صبت كانتي ما حيته لأن يرد الصوماليين لأن يرد الصوماليين رج يدمر به سوي شرين إن يسن مارته يجو أيسن كعينين أو أتكيستين كو يلا ما تنصنوا in wadankoodii uu burburo ayagoo indhahoodii ay shan yihiin oo isu jeedaan aniga taas waa idin raacina waxa idin noqonaysaa yani haddaan ugu hormaro sooyaan wax yar sidaan marka rabo iriban ku laabanaya 22 sano oo dalka burburka ka jiray dhalinyarada Soomaaliyeed yani waxa loo adeegsaday misuse baa loo adeegsaday askar baa laga dhigtay birish laga gudbaa nin walba ninku ka xoog badan yahay iyagoo looga faa'iideysanayo waxbarashada ka burburtay iyagoo looga faa'iideysanayo baahida iyagoo looga faa'iideysanayo in laga xoog badan yahay oo laga matalatigoodu yani ninkii ka weyn adeegsanayo 20 sanadood dhalinyarada Soomaaliyeed wax maskaxda laga gumaaday iyo wax bad lagu dilay bay noqdeen absolutely 20 sanadood dhalinyarada Soomaaliyeed ka maqanta meel kasta joogeen marka 20 sanadood waa inay maartay waxay kala mid tahay adoo ka tirtiray maartay adoo ka tirtiray lamid ka soo qad ku Yurub ku nooloo kale aan soo noqon Yurub baan ku noolahay cunuga waxa lagu soo barbaariyaa caloosha isagoo ku jira caloosha isagoo ku jira baa la soo barbaariyaa fitamiinkiisii dhaqaalihiisii noloshiisii jigreentiisii caafimaadkiisii wuu ku dhashaa
banaha buu ku galaa fogistu ku galaa iskuul buu ku galaa dugsi sare kaga baxa jaamacad buu ku galaa wuu diyaarsan yahay dhalinyaradii halkan maxay yimaadeen 9 sano 8 sano walba soo ka maqan tahay buu yimid mutahay class baa lagu tuuray maba la socon karaba waxyaabo aad u far badan haddaan wax yar ka iraahdo dhalinyarada ha yani ka soo qaad dhalinyaradeen iyagoo 20 sano 9 sano iyagoo ka maqan tahay bay yimaadeen waxa mutahay class baa lagu tuuray luqadda Deenishka xoogaa waxa la baray sida loo isaga jawaabo class baa la fariisiyay wuxuu isku dayay ardaygu inuu yani ardadan uu la fadhiyana oo Deenishkana waa arday sidaan sheegay u soo barbarsan arday class ku fadhiya class uu ku jira haye gacantu taagaya inuu jawaabo doonayo jawaab bixiyo haddii xagga loo soo xagga u jawaabaya because wixii lama socdo waa taqana macallimiinta wadankan waxbaad khaladeen lama oranayso waan xuntaana waa laga aamusaya mid kale la qaadanaya sida jawaab kale u bixinaya markii 3 su'aalood ama 4 su'aalood maalin walba galaaska sidaa kaga dhacdo maalinta dambe xiisa uma haynayo iskuulka soo aado inuu iskuulka yimaado isku daymayo maalinta ugu horeysa inuu caloosha xanuunayso bari waa inuu lugta xanuunayso maalinta xigta habartii odagina waxa la iskuulkii aad wax kale laga caawin karaa ma jiraan iskuulka waa loo soo diraya gurigiina cadaab baa u yaalo habartii odaga u fadhiyo iskuul baa loo soo diraya iskuulkiina cadaab baa uga soreeyo lama socon karo maxaa dhici jirtay in boortu soo qaadanaya gurigu ka soo wax mad baa kasi xiswa wata galaas uu aadana wadnaha siin karana kama horeeyo waa inuu maalintaas dariiqa taagnaado ku wareego bari buu helayaa mid kale boorso wata sidoo kale war maxaa ku dhacay war iskuulka wax sur noqday war aniga cunfuriga waa iskuulka u noqday baanta la noqonaya maalinta group bay noqonayaan saas iskuulka drop out kaga noqon jiray marka dhibaatada weyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed haysata ee Denmark ku nool ama wadamadan qurbaha ku nool mid haysa waa mid yani la socotay taariikhan markaad ayaga la socotay saameynaysa yani dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacayba soo saameeyay bulshada isan bay u yimaadeen iyagu burbursan dhalinyarada ha taasa keentay in dhalinyarada la dhaliilo oo ay meesha la rabay laga arki waayo inkastoo ay waxbarashada ku fiican yihiin ama taasana ogahay waa ku waracsanahay waxaan ku darsan lahaa sida la socotaan waxaan oran karnaa 40 sano u dambeeyay Soomaaliya system fiican kama jirin 10 sano oo dawladda soo magacayaal ahaydna iyo 20 dhowr iyo 20 hadda la maraya marka waxaan qiyaas 40 sano la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed system ma helin marka qofka 40 ama 35 jira maantay waxbarasho chance uma helin marka waxaana jirtay dadka Soomaaliyeed مثلا هذا تصال سوق هذا الكاغو حكي جري دولتها عربتو كعدونك كدعي waxa ka ciid dhalinyaro aniga dhalinyaradaas gaabkaas waa naga maqan لأن dawladii la soo dhaafina dadkii kuma ay barbaarin wadna jacayl iyo wadaniyad kuwii kale markii kalena ma ay sahelin marka dadka Soomaaliyeed oo 40 sano ka yar ما بقى مثلا وطن لأنه ما بقى ركب سيستم وحبرشة ما آدم ما تقعنا وحكلا مصمين وحنا أركي ضد ونسديلها هي أو قرية وطا قرية سوقات نولش يصير الأمر وحكي كحران تاي إنه واحد عه أو واحد له وصومالي وحكي شلون كهذا مسكحان مركا أنا جو حنلين هاي لبعضها ضد كي هاي لأن يلا الصومالي هايسا وحاول مركا وهو رئيسا ما يسهلين جانس ودنيات لو بره ودنيات maxaa ka dambaysa qofku horta inuu ogaado soo u noolaan lahaa marka hore soo in la baraa ilmahan hada wadankan jooga hoos baa looga bilaabaa wuxuu og yahay maalin 18 jiro waa yaqaan wuxuu qabanayo 10 jir maalintu waa yaqaan 20 markuu jiro 30 markuu jiro wax kasta time table bulay laakiin annaga waxa soo dhan male ninkii marka barnaamijkiisa u diyaarsana uu dhex yimid asagoo 15 jira suurtagal ma noqonayso inuu markiiba la qabsado laakiin dadka Soomaaliyeed xagga fahamka waxbarashada haddii system hagaagsan heli lahayn waxaan aaminsanahay dadka ugu horeeyay inay ahaan lahayn taas horta midaas waa midaan aad iyo aad ku raacsanahay in dadka Soomaaliyeed ay noqon karaan la tartami karaan qola kasta waxa ku muujinaya midaas ayada mid hadda markaan ka hadlaynay xagga dugsiyada hoose iyo kuwa waliba maarta kuwa waxbarashada dhalinyarada markaan fiirino waxaan la ogaaday gabdhaha Soomaaliyeed inay xag waxbarasho kaga rooyihiin wiilasha Denmark baan ka hadlaynaa mujida marka bal waxaan jeclaan lahaa horta bal taas inaan fiirino sababta keentay
maxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed inay wiilasha xagga waxbarashada kaga roon yihiin xagga jaamacadaha marka tiraadid xagga waxbarashada xagga dhalinyarada marka la yiraahdo dugsiga sare iyo arrimaha la xiriira kuwaasan ka hadlaya inay ku badan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ku badan yihiin wiilasha inta badanna wiilal badanna yani intooda badan aan dhahno inay maarta ama tacliintii sida hadda aad awal u taabtay ay ka joogsadaan garanaysa yani duruufaha keenana waa taabanay laakiin maxaad u maleynaysaan sababta keentay gabdhaha Soomaaliyeed inay kaga roon yihiin waliba gabdhaha Soomaaliyeed waxa si raacsan gabdhaha ajaanibka oo dhan ayaa wada taas la socda mujada laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxay kamid yihiin gabdhaha ajaanibka ee ku nool wadanka Denmark marka maxay idinku muuqataa arintaas sababta keentay arintaas horta waa arin runtii laga jawaabi karo general haddaan u hadalno Denmark baan hadda ku noolahay wiilasha Danish-ka iyo gabdhaha Danish-ka waxbarashada ayaa ku fiican gabdhaha ku fiican iyaguna horta bulshada ka mid yihiin bulshadana ku noolahay ayay waxbarashadu gabdhuhu kaga fiican yihiin wiilasha saasa horta keentay baan oran karaa inay gabdhuhu kaga fiicnaadaan wiilasha waxbarashada Soomaaliyeed mid kale haddaan wax yar tusaale u soo qaato dhibaatadii anigu aan soo sheegayay wiilka iyo gabadhu isku si dhibaatada ugu adkaystaan wax iska dabiici ah ka soo qaad psychological haddaan u hadalno ninku dhibaatada uu qaato insight-ku ku haysta insight-ka markuu haystana waxa keena inuu ama drop out ku noqdo ama isku dilo ama uu systemka kaga dhaco gabadhu waxay ku xiran tahay baa la yiraahdaa inay intay ooydo oo dhibaatadu adkaysan weydo indhahaas ilmaheeda ka timaado way nafisaysaa markaa bulshada markaa ku dhex jiraysaa laakiin markii waxbarashada sida sadda anigu aan sheegay ay gabadhii wiilka ugu wado dhibaatadaas ugu wada dhacdo gabadhu way si adkaysatay baa la oran karaa laakiin wiilashii dhinaca kale u leexdeen group kale heleen kuwa qaad cunay heleen kuwa maartay dhinacan taagan oo kala ajnabi aan hadda magacaabeen oo gangis kala bay heleen drop out-kii kaga bateen haddii la fiiriyo yani yawna eelaha la fiiriyo marka laga hadlayo ama age-ka la fiiriyo ama yani isku groupka marka la fiiriyo haddii meeshii 5 gabdhood ku jirtaba la waayo ama hal laba wiil lagu arko kaleeto yani waxaan oran karaa wax kale ma ahan midda environment-ga iyo deegaan ahaan oo dalka aan ku noolahay sida oo dhan ah iyo dhalinyaradii wiilashii iyo gabdhihii dhibaatada u wada adkaysan waayay haddaan dib ugu noqono Denmark waqtiga anagu aanu nimid iyo waqti dhowba hadda wadanka xoogaa iska furay baa la oran karaa waxa la yiraahdaa group work baa ka jira ama qoqoba abayda Denmark ka jira cadaabka ugu daran qof waxbarasho Denmark ku gala waa qoqoba abayda wax la yiraahdaa ama group work wax ugu dhibka badan sababtu waxa weeye iskuulkii baa leeyahay project baa la sameeynaya wala yaqaan bil kadib baa la sameyn doonaa wala si balansanaya yani nin walba iyo gabar walba groupkiisa la shaqeynaya way yaqaanaan barid cilaad ku soo dhacaysa dariiqa taaganta galaaski kaligaaba ku soo haraya sabuurada lagu qoray maxaa la sameynaya waxa group walba isu leexday adii kaligaad meesha fadhida macalinkiina ma oran kara khasab ku qaata ardaygan oo ma khasbi karo iyagina shalay sii ballameen marka meesha kaligaaba ku soo haraya kaligaan in wax samaysid lama ogola waa inaad wax la samaysid ardaydii maxaad sameynaysaa marka adiga waxbarashadan ma ka haraysaa ma ninku necab aan ku reyn baad baryaysaa ma macallinkii baad isha ka fiirinaysaa oo isagoo aan khasab ku lahayn ardaydii yani dhibaato weyn oo dhacday cid walba ku dhacday wey dan waxbarasho gashay horta dhibaatadaasna waxay noqotay dhibaato kale oo dheeraada meesha timid oo qof u adkaysan kara una jirin waxaan marka aniga oran karaa gaabka dhalinyarada ka banaan dhinacaas inay ka baxeen baan lagu malaynaya because waxa weeyaan aniga mid igu dhacday haddaan tusaale yar soo qaato idinkoo iga raali haddaan ku dheeraado galaaskayga waxaa dhacday in la keenay imtixaanka isagoo 2 boqoshood ku jira labada qaybood baa lagu galayaa baa la yidhi waa la furay awdhiin liidarkii baa wada mid magacaygoo keliya laga yeeray aniga 23 man galaaskana 22 kalena hal qodbi ku wada qoran umalayn may qofan maanta arrinta u sheeg inuu rumaysan karo laakiin ana igu dhacday ka hadlay maanta buugiga qalinka la saaray ardayda waxay yiraahdeen ma yeelin arrintaas cunsuriyad weeye discrimination weeye in ninkaas oo anaga galaaska nala ahaan oo hal imtixaan galo imtixaanka laba qayb loo galay haddaan si kale u raacdo inta kalena hay qayb gasho ma yeelin ali sababta oo loo sameeyay maxay ahayd taas
والله هدر كم جواب كرو لكن أنا امتحان بقى لسوء سمية ومن عدي لجوس سمية كوا كلنا يعني امتحان لبا قيبود ولا سكويد عضها لبا قيبود نقول كلا جريا قيبنا وحاس لبا قيبود بالكاد ديارنا أوكي بالأورنيا هو حس كعادي إن اللي يراه جروب وحبود ديارنا مقت أنا واحد نقول جروب كله ديارنا له كليس أرددي كلام واحد نقول جروب كله هلا واحد ديارنا أوكي أرددي مركي جديدين أيام معلم كيس أقول حير أنا أقول واحد كمان بدل كر إذا كان حكام بدل كرتان هذه امتحان كنا لكن صلنا ديك هذه برشاد إنه سمستر كاسون ندبون عيا جعنت أنت أنا واحد كبير أوكاتش أب مهرسين لما يرانا هي أرضية صاحب بضيعة أنا كفر أنا سامين أيام كبير waxaan isleeyahay anigu aan isweydiiyey laba arrimood baa ii soo baxday waxaan qaadkii positive-ka ahaa because dan kan negative-ka qaadan lahaa waxbarashada dhan buu inaan ka taga dhici lahay waxay ahayd xiisada anigu aan ugu nibcahay galaaska marka lagu jiro sawir iyo muusiig iyo waxyaabo lamida bay ahayd badanaa saytaa ugama qayb qaadan jirin haddaan marka qaato in lagugu ridaa la rabay maadaama aad maadadaad ku liidatay ay tahay tan وهذا حبرشة بس هذا وهرته يعني أنا يقدر نقول يعني أنا سيد فكرة أنا وصل نقول لها لكن محن قاتي أنا بوزيتيف كمان قاتي وحن سواء قاتي إن أنا هاي إن اللي ديارنا أنا وحتى هدي أن يعني سمستر كهر عندي بصو ديارية واللي تسي أنا إن كان أنا كفر حسنين ومانتل يقدري أو تحنك سكيل جسل إيك يعني أرضا كلام سيد هاي أسمينين إن أنا وحلا إيجابها هنا أيتها وجاب كسمر اللي جت تجين تاسع أنا وقاتو إسكال عدي وأنا من الإسكال عدي عنكره من الإسكال عدي عنكره نسيب هناك سيدات بالو كان يتضوي إسكوجرت كانوا سجال ما قاتل نسيب هناك مركا يعني دتك ساس كم وضع مركا كم حرة مارت كوحين لو شقي كم حرة مركا كم حكوا حرانته مارت ذلك أدوات تسمي يصير أدوات سويان محد تاسر عين الهيد أيضا سؤال شذا هيد قبله هو كفر فرعونيين هذا أنت بقول لابتو وجرت هرت صوماليا وحن كرنيا بريغان سكول كدغنيني كبدا aad u firfircoon ilaa 3 gabdhood kaalinta kore markasta ku jiri oo la iska yaqaan laakiin halkan waxaan isleeyahay waxay uga gudsan tahay gabadha iyo wiilka halkan farq uma dhaxeeyo waxa laga yaabaa jagada wiilku uu qaban lahaa in gabadhu qabato laba qof oo siman way shaqada u siman waxbarashada u siman waalidka u siman laakiin Soomaaliya waxa dhici karta ilmuhu markay wiilka iyo gabar markay reerka ay leeyihiin wiilka waxa la bari jiray gabadha reerka ka shaqeysaa la oran jiray saadarteed waxa halka wajiyada inaysan jaanis oo halka gabadha uusan ugu jirin laakiin halkan wiilkii ayada waa simeeyeen waxbarashada u simeeyeen dhan kasta u simeeyeen mid baan ka fakarahay markaan su'aashaas yani hadda inuu fikradina siisan waan midaan anigu aan u maleynaa inay tahay yani fikradu jawaabteedu say ahaan lahayd laakiin mid baan ka fakarahay kale ma ogta waxaan ka fakarahay xagga barbaarinta sida gabdhahan u barbaarino يعني المهنة قبلها نسان أوبر بارنو وحنا كبر بارنا إنه نقطة دينش كواي وأهانشر الوقت ولو أركيس عم وقت الممركي واحد يكون عيار هيان قبل يسافر كي واحد دورنا هيان أما يقعد نص ما أما يقعد در طلع يا أما در سوق الجلنا أما تماها أما سام موجودة وليش نسوق مارت واحد تجيبنا ميل فول هاي أما باور سمينا يا أما واحد مار نوع عاصو كله يعني لبا waxaan leenahay dadka bil aadanka way kala duwan yihiin gabdhuhuna habway wiilashuna habway laakiin gabdhaha sidaan u barbaarino iyo daan maarsi loogu barbaariyo yaani farqi baa u dhaxeeya Soomaa farqi u dhaxeeya waxa weeye gabdhaha iyo wiilashu waa isku mid inkastoo ogtahay moogta gabadhu mar walba hooyadeed bay la socotaa deen shaqaar baa u maleynahay moogta inay gabdhuhu inay hooyada aad ugu xirnayn ruuxantii yaani gabdhuhu deenishka hooyadood aad iyo aad bay ugu xiran yihiin waxyaalo badan bayna ka bartaan asan oday ka baran karin waxa kamid ah haduu odagu ku fiican yahay sida cuntada loo karinayo arrimo loo barnaamij kale isaga uu bari karaa moogta haddaan xagga barbaarinta gabdhaha masalan gabadha iyo wiilka marka la barbaarinayo gabadhu had iyo jeer gabar waa hooyad baa la yiraahdaa wiilkuna hadduu odagu joogo ama maqan yahay inuu reerka u taliyo raba marka asagu xagga markuu la joogo wuxuu u sameeyay yahay inuu reerka leader u noqdo laakiin gabadha ma sameysana laakiin diiniyan anaga dhaqankeena marka u soo laabano islaamku wuxuu qabaa gabadha iyo wiilka ninkii 3 gabdhood oo
koriya jannada sida quraankan uu sheegay xadiiska nabiga ahaa yani without yani wuxuu ku galayaa hadduu marba koriyay 3 gabdhood yani ajir badan buu helayaa sababtu uu ogyahay dhibaatooyinka gabdhuhu waa ka dhibaato badan tahay waa ka xanaano badan tahay isha ku haysa isha in lagu hayo marka anagu marka waxaan aaminsanahay islaam haddaan nahay gabdhaha in wiilasha laga hormariyo oo lagu wanaajiyo islaamkeena ogol laakiin dhaqan ahaan baa waxa moodaa waalidka ama dadku ay jecel yihiin wiilku maadaama uu dagaalaha jiray waag hore waa la isdili jiray oo gabadha duulaan ma aadi jirin marka wiilku markuu 12 iyo 15 markuu jiro raggu ku tirsan yahay duulaanku wax ka galaya saa darteed dhaqankaas halkaa ku salaysan waxaa laga yaabaa in waalidku ay ku fakarayaan duulaanka imaan doona ama reerka idinku soo duuli doona wiil asaga lacag baa hadhow soo qori wata imaanaya oo reerkii geel idinka dhacaya marka wiilku geelu difaacaya la gabadhu geel ma difaacdo dhaqanadaas halkaa ku salaysan waxaa laga yaabaa in waalidiintu ay xoogaa wiilka dhinaciisa u garbiyaan laakiin systemkan nabadda ah waa ka duwan mid baan haddaan taa idin raaciyo maalin dhaweed baan waxaan aqrinay article weyn inay Ulan's Post inay ahayd iyo politician labadaas mid baa yaa iga maqan moogta gabar يعني إني عرب أهيد بانو مالين هيا يو سن دريم هيو waxay ku qortay wiilashii gabdhaha yani aad iyo aad ba dadkeenan yani waxay ka hadlaysaa dadka sida Soomaalida Carabta yani waan kala duunaa waa kala noo kala sokeeya wiilasha farahan kala baxna waa sii deena waxa laga yaabaa maqto inuu caawo goordam iska yimaado ama uusan weydiin xataa mararka qaarkood ba aysan weydiin inay imaanahay in kale xataa baroni soo ciyaar halkaan ay aadayaan gabdhaha hadii jeer waxa lagu hayaa xakama lagu hayaa yani waa dareemaysaa ma ogtahay yani duruufta annaga aan ka nimid wadankeena aan ka nimid yani waa dareemaysaa gabar hadii la sii daayo waxyaalaha ka imaan kara waan ogna laakiin Denmark marka la joogo waji kale leedahay yani maxay u dhacday su'aashaas isweydiinaysa Soomaha marka xagga markaad fiirisid barbaarinta aan barbaarinayno midda keenaysa gabdhuhu inay isdabaraan way culays weyn isa saaraan bal u fiirso gabadhii reerkii gabar ay u korto oo wuxuu yeelato wiilal badan bay dhaantaa aniga hadda halkaan fadhiya ay tusaale idin ah aniga walaashay bay soo korsatay bal u fiirsan walaashay bay soo korsatay yani kuwii kale iga horreeyay walaalahay iyagana waxay isku dayeen inay korsato mid walba wuxuu noqday hadda mar raba inaan iraahdo waxay noqdeen yani wax fiican ilmo badan bay dhaleen askari bay noqdeen iyo wixii kale lamid ah يعني أنا هذا ما ده هي نك أسكر نقضي نحمو نقضي ما ده هي موجود لكن وحنا كهذا هي يعني واحد برشيد لو قد هاي دوكسي جس خاصة دوكسي النحاء يوحربة سكندري كبه مال كان آد جامعة ديك صباح يعني طريق الله بحنا مرة كبر بقى هي ولا الله يجي كله أنا من كها يعني دور كسمع يارن حتى مركي كوريان أو مال يشان ما يسمعين الناس موجودة مركي قبله runtii waa door weyn bay ciyaaraan haddaan midda kale gadaal ugu soo noqdo midaan su'aashaan ahayd sida dhalinyarada Soomaaliyeed u maleynaysa maarta inaan koox loo shaqaynaynin marka ay taa horta waxba siman ka dhahaya oo ku raacsanayna Sacuudi Carabiga ayaan ka imid jaamacadda ka dhiganay markaan Denmark imid jaamacadda Aarhus baan galay markaan jaamacadda bilaabay imtixaanaadka marka la galayay anoo hore waxaan u soo watay bachelor baan soo qaatay marka waa inaan sii qaataa مصر كسيقة تا سوما تك أن كل شيء يعني أنت هذا بدن وكويس لصوب بلعبة حتى واجي دوكسي وخاصة لحد ينشرين لصوب لقتي سوما جديد وما كان سني معنا يعني واحد بدأ يقول سحيب هنا ولا شراء يعني ولا هلا يعني سوي أنا ضد كحبة كمان قانو قرنسا يعني مركب كح على سوق قايبين هاي كح هذا مرة وكنت اسكت الصدامة بس قايبين يعني قرنسا لبدي إسرفتها أنا مناسب هناك يعني قار كملها ayaan anigu saaxiib la ahaa moogta la noqdo waliba xataa kuwa kale meelo kale ka yimid oo jinsiyad kale lahaa mid qoonina ka yimid oo yaani soo jaamacad dhiganay saas oo kale marka dhibaato way keeni kartaa run ahaantii midaan ah dhalinyarada ajaanibka ah marka jaamacadaha ama xagga waxbarashooyinka ay aadaan inaysan yaani sida loo wada shaqeynayo qaarkood ma fahmayaanba Soomaha marka taas waa mid aad iyo aad muhiim ah haddaan ka sii socono midda ayada waxaan rabaa maanta hadalka saacadii waa naga sii socotaa bal waxaan rabaa inaan balgadaal ugu noqdo dhalinyarada Soomaaliyeed oo isu bedeshay inay noqdaan burcad badeed badda burcad badeed inay noqdaan
maxaad u malaynaysaa inay keentay sababtaas dhalinyarada Soomaaliyeed ay burcadbadeed u noqdeen maxaad se u malaynaysaan in lagu xallin karo sidee baad u malayn kartiin in lagu xallin karo waddankeennan hadda ilaa dawlad baa ka aasaasantay sidee baan ku xallin karnaa arrintaas maxaase keenay bay idinla tahay adoo iga raalli ah anoo maanta barnaamijkan ka faa'iidaysanaya kii hore dhalinyaradan jeclaan lahaa inaan fariin waalidiinta ah aan ku daro okay annaga Denmark baan joognaa dalkayga waa ka nimid Danish baan nahay bulshada Danishku waa bulsho is haysata oo gabar iyo wiil iyo hooyo iyo aabba is haysta sababtu noloshu way adag tahay Denmark waxaan anigu yacni oran lahaa markaan rabno inaan bulsho diyaarino oo dhalinyaro soo saarno aabba iyo hooyo is haysta oo ka warqaba gabadhooda iyo wiilkoodu wax ay yihiin iyo meesha ay ku maqan yihiin iyo waxbarashada siday ku yihiin iyo galaaska siday ku yihiin iyo maadada inay bartaan ay rabaan iyo qof walba wax uu ku fiican yahay wax uu ku liito bulsho sidaa ka warqabta u dhisan inaan noqono ayaan aad u jeclaan lahaa fariintaasna waalidiinta ayaan u gudbin lahaa waxaan weliba si farta ku fiiqi lahaa islaan iyo oday 5 iyo 7 iyo 6 isu soo dhalay oo markay Denmark yimaadaan kala tegay oo dhalinyaronimada soo qaatay oo quruxdooda soo qaatay oo shal reer soo isla qoslay shalay maanta marka dhalinyaradooda mustaqbal u sameyn lahaayeen qof walba leeyahay adaan kugu daalay idinku hadda daasheen hore u soo daasheen laakiin kuwana mustaqbal maanta leh iyaga aanu ka fakarno iyaga aan barbaarino oo bulsho is haysata aan soo saarno inta horta fariin baan u diri lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa mid fiican weey taas dhinaca burcadbadeedka mar dhaweed hadalkayga waxaa ku jiray 20 sanadood oo god madow inaan dhalinyarada Soomaalidu ay galeen dalkii Soomaaliya dagaal baa ka dhacay kaabayaalka dhaqaaluhu waa burburay shaqo waddankii kama jirto resource kale ma lahan waxbarasho kama jirto markaas fiican oo system socdaa ma jiro waxaa yimid biiqaadkii baa yimid sababtu ku bilowday haddaan wax yar yani u leexdo dadku wax fiican bay marka hore u arkayeen burcadbadeed marka la leeyahay dadka Soomaalida hawsha lagu fiiqaa oo yani burcadbadeedka noqday laakiin burcadbadeedka badda jiriifaysa oo caalamka ka socota cidina wax kama sheegto dhalinyaro xanaaqday waxaa la yiri war badeennii iyo kalluunkeenii baa la iska guranayaa oo kheyraadkeenii baa la guranayaa oo macdanteenii baa la guranayaa oo badeennii waa qashin lagu shubayaa maynu iska celino annagu marka wax fiican baanu arkaynay laakiin side effectiga nagu reebtay baa waxay noqotay halaag bay noqotay tan si kala waraado dhalinyaradaas markay isxilqaan waxay yiraahdeen anu maraakiib bay qabsadeen saasay ku bilaabatay maraakiibta madax furasha laga qaatay dhalinyaradii halkan dhoobnayd ee Soomaaliyeed oo wada gaajaysneed oo aan aqoonta lahayn oo qoryaha sidatay markab hebel baa lacag laga qaatay oo madax furasho loo qabsaday markii la yiri kadib badii baa la galay badii markii la galay nin walba shilin buu raadsi wixii marka loo arkayay in bad lagu difaacayo resource-keeni dhalinyaradii Soomaaliyeed ee mustaqbalka dalka uu ahay waxna xabsi bay noqdeen oo xabsi bay galeen waxna badda liqday kii maanta nool mustaqbalku ma noolo sababtu wax deeqayaba male milyan lacag u bartay shalu baadiye ka yimid cayr sabool ahaa wal guriga ma dhisan gabar cad iyo gaari qurux badan buu raadsi santuuq dhalaha khamrina uu sii qaatay haddii xataa maanta khamrida laga soo celiyo waxaan ka wadaa sorry haddii xataa burcadbadeedii maanta laga soo celiyo gacanta lagaga dhigo uusan kuba dhiman wax deeqayaba male nima shalay waxba haysan oo milyan lacag bartay maxaa deeqaya maanta wax deeqaya male maxaad u malaynaysaa dhalinyaradan Soomaaliyeed yani sidee baa lagu xallin karaa yani dhibaatooyinkan hadda jira lagu joojin karaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay burcadnimada iska daayaan يعني maxay dawladda qaban kartaa dawladda Soomaaliyeed maxaa bulshadeenan qurbaha ku nool aan ku beeri karnaa fikrad ahaan asan ka hadlayo aad baan u jeclahay su'aashaas inaan ka jawaabo horta burcadbadeedda maanta waxa ah saan marka hore sheegay Soomaali kaliya maaha caalamkana maanta xididada waaweyn ayay burcadbadeedda ku leedahay oo wadamo waaweyn iyo dawlado waaweyn baa lugaha kula jira dadkan Soomaaliyeedna hadaynan u helin imkaaniyaad kaleeto oo support kale aysan helin iyagu awoodba uma yeeshan inay meelaha ay tagaan maanta ay tagi karaan dad gaangis oo aan iyagana u danaynayn annagana noo danaynayn dalka iyagana u danaynayn baa gacanta kula jira sida lagu la dagaalami karo lagu xakameyn karo
dowladaha waaweyn oo awoodda dhaqaale iyo midda ciidanba haysta kuma talagelin laftoodu qaabkii Soomaaliya burcadbadeed looga hortagi lahaa haddaan si kale u iraahdo burcadbadeedu kalluun ma aha badda ka soo baxda burcadbadeedu waxay ka timaadaa biriga iyo deegaanka iyo magaalooyinka ka timaadaa maamuladii deegaamada joogay oo ka shaqaynayayna gacan lama siiyo dhaqaale lama siiyo dooma ay ku ceyrsadaan lama siiyo dhaqaale ay ku qabtaan lama siiyo hub lama siiyo waxay kula diraan lama sameeyo dawlad walba intaas markab bay dirtay badda la geeyay baddi baan ka kalluumaysa waxaan burcadbadeed kula dagaalamayna burcadbadeed ma wax ka soo baxaysa ma kalluun baan badda ka soo baxaya birigii bay ka imaanay bidigii lagu dagaalamo soo ma ahayn dadka birigii joogo ka talinayo degan bay ahayd in la maalgeliyo in dhaqaale la siiyo in hub la siiyo in imkaanaad iyo gaadiid la siiyo in biriga ay ka imaanayaan lagu horjoogsado bay si kooban haddaan uga jawaab sidaas wey ما هو يعني فكرة لا تابن كنا ونحسن وياه سويان horta arrinta burcadbadeedku waa dhibaato aad u lixaad weyn ma ahan mid sahlan oo yani si sahlan looga jawaabi karo waa arrin qoto dheer anigu intaan la socdo runtii Puntland baan dhowr jeer boqosho ku tagaa wax badan baan ka ogahay burcadbadeedka dad badan oo hawlahaas wax ka qabtay oo la xiriirina aad iyo aad baan ugu xiraa horta dhibaatada waxa kalifay oo ugu weyn waxa weeyaan si ay la socotaan 30 sano Soomaaliya la soo dhaafay shaqo kama jirin ninku markuu soo barbaaro oo uu 20 jir noqdo oo soo waxbarasho haysan oo soo dhaqaale kala haysan oo miyiga uu ka yimid inuu noolaadu raba muxuu ku noolaanaya taariikhdii hore markaan dib ugu laabano Soomaalida ama dad waayada hore qaraab bay ku noolaan jireen miraay cuni jireen yani deegaankan ma jirin sidii oo kale baa ninkii magaalada soo galay xoolihii miyigan oo ka soo kacay markuu magaalada yimid wuxuu arkay dad qaad cunaya oo balwad leh wixii uu cunay asna ma haysto waxay ku kalifaysaa asagoo raashin cunin inuu xoog isticmaalo marka dadkii waxay shaqo ka dhigteen marka waxa jirtay markii horeysa ay baashan bilaabanaysay niman kalluumaysataa baa badda ay ka kalluumaysanayeen alaabadii ay kalluumaysanayeen laga qaatay maraakiib badan baa timid waxyaabo noocaas horta ku bilaabatay waxa haddana dhacday markii dadkii shaqo waayeen inay ku fikireen maraakiibtana soo qabsateen maadaama ay ka kalluumaysanayaan xeebihii u dhawaa meesha qaar ka mid ah qabsaday shaqayba noqotay maalinta laga bilaabo dadkii dhalinyarada ah oo ilaa wadan ku noolaa oo dhan maadaama ay shaqo haysan shaqay ka bilaabeen niman baa qabsaday lacag baa la siiyey madax furashaa nin kasta oo lacag haystay iyo nin kasta oo qor haystay iyo nin kasta oo hub haystay iyo nin kasta oo dhalinyara badu aad waxa lagu hortay karaa marka ugu horeysa sida caawil ereygiisa ku uu yiri burcadbadeed cirka ma soo dhicin deegaankii ka yimaadeen miyiga biriga ka yimaadeen biriga haddii lagu sameyn lahaa nolol badda ma yaadeen nina riski ma usu aadeen hadduu nolol helayo marka waxaa looga hortagi karaa iyadoo marka ugu horeysa la wacyi geliyo iyadoo shaqo loo abuuro iyadoo waxbarasho loo abuuro sidii waagi hore hadda maahan Puntland ka soo qaadno magaalada Ayn waxa joog jiray saldhig bay ahayd caluula saldhig bay ahayd garacad saldhig bay ahayd yani meel u waaweyn bay ahayn dawladdu waxay isticmaashay dad wadaada iyo dad aqoon-yahana iyo waalidiintii iyo mujtamacii dhamaaba la kiciyay wadaad ugu magac ku leh wadanka Soomaaliya baa waxay tageen meelahaas oo dhan tagay dadkii waxa leeyahay waxaas waa xaraan qofka muslimka waxa ka xaraana inuu meel jidgooyo dhigto oo qof ama gaal ha aado ama muslim ha human being haduu ba yahayba ina baadi oo xoog ku qabsatay xaq u malid taasna waxba iska bedelay dadkii way ku baraarugeen hadda waxay maraysaa meel fiican hadda international community waxa moodaa laftooda inay il gaar ku arkayaan oo la yiri laga soo qabto markii la soo qabto halkeen wadankoodii xabsiga loogu sameeyo hal dhaqan celiyo arintaas waxa lagu xalin karaa ayadoo biriga laga bilaabo sida hadda ay bilaabeen lacag badan bay ku baxsheen oo
sida loogu horumariyo shaqo loogu abuuro marka waxaa looga hortegi karaa arrintaas hadda ilaa boqolkiiba waxaan oran karnaa 50 hoos bay u dhacday boqolkiiba 60 50 afartan kalena way hartayna way dhacaysaa haddii saasan gacan ay helaan saasan aaminsanahay in lagu xallin karo taas horta waa mid aad iyo aad u wanaagsan weey sidaan haddaan la socdana laba xabsi oo weyn baa laga dhisahayaa midna waxaa laga dhisahayaa dhinacan loo yaqaano Somaliland loo yaqaano qaybna waxaa laga dhisayaa qaybtan Puntland ayaa laga dhisayaa saan aniga aan la socdo taasna waa mid aad u wanaagsan weey laakiin xabsi kaliya wax ma tarahayo midda loo baahan yahay waxa weeye sida magacawadeenba in maarta iyagii dadkii waxay ay ku mashquulaan in la sameeyo waa in xagga waxbarashada culays la saaraa waa in xagga shaqada dhalinyarada culays la saaraa taas horta halkaas ka baxayna sababta waqtiga waa naga sii cararaya waxaan jeclaan lahaa maarta bal inaan hadalkeena ku soo gaabin idinku soo gaabinay sababta waqtiga waa sii socdaa maxaad ku baraarujinaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee degan Denmark ilaa waan ognahay idinku laftiinu culays weyn baad iska saartaan yani urada idinku maarta urada xaggooda fiirinaya maxaan dhalinyarada ku beerin karnaa dhalinyarada maxaad u malaynaysaa inaan ka bedeli karno maxaad u sheegi lahayd dhalinyarada inay maarta iyaga laftooda ay culays weyn iska saaraan dhalinyarada waa arrin su'aal aad iyo aad muhiim u ah weeye dhalinyarada waa resource-kii anagu aan lahayn haddaan Soomaaliland nahay waa dadka isku kaaya xirayay anaga iyo Deenishka sababtu waxa weeye waa dad laba dhaqan la oo si fiican u bartay dhaqanka Deenishka kii Soomaaligana ka warqaba dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin in waalidku isticmaalo iyaguna waxay u baahan waalidka laftiisa inaysan cadow ka dhigan sababtu waxa la yiraahdaa baritaanada la sameeyay adduunka qofka hadduusan luqadiisa dhaqankiisa aqoon waxa u sahlan inuu criminal noqdo sababtu wuxuu ka cararayaa kan uu luqadiisa usan garanayn ku luqadiisa garanaya uu cararaya biyaha waad aragteen biyuhu hirba hirku dhinaca ka xigay ayuu xambushka ama yacna wax haraaga la yiraahdo banaanka u tuura kan uu bari gabaad ka dhiganayo uu luqada ku raacayna bari banaanka u sii tuuraya hadhow khasaar ku dambeynaya dhalinyarada iyada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay waalidkood wehel ka dhigtaan wixii waalidka ka dhiman iyagu inay ku kabaan dhaqanka ha noqoto luqadda ha noqoto Deenishka sharciyada ha noqoto inay waalidkood ku caawiyaan wax iyagu ay ku dhaamaan waalidiinta Soomaalidana waxaan ka codsan lahaa naf iyo maalba inay la garab istaagaan oo dhalinyarada waxa Soomaaliya ka jira intay waqti ku dhumin lahaayeen dhalinyarada inay waqti geliyaan inay saaxiib ka dhigtaan inay dhaqanka uga sheekeeyaan inay aqoon wax ay ku dhaamaan uga sheekeeyaan inay yacni resource isticmaalayaan ay ka dhigtaan oo ay noqdaan dad iska warqabay aan ajnabi kala ahayn sababtu waxa weeye waxaan dareemayaa in ajnabi kala yihiin dhalinyarada Soomaalida oo Denmark ku nool iyo waalidiinta Soomaalida sababtu maba isfahmayaan dhaqanka ay isku fahmi lahaayeen gaab baa u dhaxeeya dhalinyaradina ma rabaan inay waalidkii ku soo dhawaadaan waalidiintina dhaqankii hore oo Soomaaliya baad moodaa inay wali haystaanoo inay dhalinyaradii fahmaan waxaad moodaa in wax ku dhaxeeya inay meel dhexaad isugu yimaadaan marka inay meel dhexaad isugu yimaadaan oo isfahmaan baan ku talinayaa mahadsanid Sooyaan maxaad raacin lahayd taas waxaan raacin lahaa horta marka ugu horeysa mas'uuliyadda dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan ku nool mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay waalidka Soomaaliyeed ilmaha waxay jecel yihiin inay iskool u diraan waliba waxay jecel yihiin inuu dhakhtar barto ma oga waalidku ilmahaas waxa uu ku fiican yahay qofna wuxuusan ku fiicnin ma baran karo kullu hooyooyinka dhan waxay jecel yihiin haddii ay ilmahan inuu quraan ka dhameeyo wiilkeedu inuu dhakhtar noqdo arrin dhacayso maahan waxaa la rabaa waalidku inuu ilmaha la socdo waxa ilmuhu u jecel yahay meesha waxbarashada uu ka maraya ilmaha waxaa jirta hadda anigu inkastoo aan ayaamahan halkan ka maqan asaas muddo maraan iyo dacis iskoolkaas hasla aan joog jirnay ilmaha waa wareystaa anigu maadaama qofku shaqada uu yaqaano macallin haddaad tahay waxaad arkaysaa nin darawal oo kala hataa ninka darawalka ninka gaariga aan aqoon uu yaqaanaa wuu fahmaya marka waxyaabo badan oo goldolooyin fara badan oo waalidiinta ku xiran wadanka Ingiriiska hadii laga soo adaan tusaale yar soo qaato dadka Ingiriiska jooga ilmaha lacag bay geliyaan qarashka ayagu ay siiyaan bay yaa lagu bixiyaa boqolkiiba 80 boqolkiiba 90 ilmaha dib loogu ceshaa lacag wadanka Denmark khaasatan magaalada aan joogno election yelbiga waa free macalinka Danish-ka free dawladda ka bixinaysa
waalidiintu ma geynayaan inay waxa kale oo la ogaaday marka arrinta dib loo ogaaday ilmuhu luqadiisa hadduu aqoon luqadaha kale inuu ku liidanayo luqadan inay baraan waxa kale oo la ogaaday ilmihii Soomaaliga inaysan aqoonba laftiisaba Soomaalina ay yihiin waxaan ku talinayaa marka waalidiintu in marka hore ay fahmaan nolosha wadankan markaas ilmahoodana fahmi karaan waxaana laga maarmaana in waalidku uu la socdo ilmihiisa wuxuu yahay subaxdii buu u raraya wuxuu leeyahay iskoolkii aad inuu iskoolkii ugu tago inuu muudada ka qayb galo in ilmaha dhaqankiisa uu la socdo in saaxiibadiisa uu la socdo waxaas oo dhan ku ogaan karaa haddii qofku uu diyaarsan yahay laakiin haddii yiraahdo inta kiciyo iskoolkii aad boorsana dhabarka u saaro suurtagal maahan waxba kama ogaan karo run ahaantii waanooyinkan aad soo jeedinaysaan waa waanooyin aad u wanaagsan weeye oo laga maarmaana waxaan rajaynaynaa maaragtay inay waalidiinta iyo dhalinyaradaba ay gaarto aad iyo aad baan u mahadsantihiin barnaamijkan aad iyo runtii aniga lafteeda waxbaan ka kororsaday waa barnaamij maaragtay runtii saan oo kale waxaan u baahanaa barnaamijyaal noocan oo kale inaan qabanno maanta waraysigaygu wuxuu ahaa aan wareysanaynay laba nin oo Soomaaliya saad hadda aad ka dhageysanayseen waa Sooyaan iyo Cawil oo labadoo maaragtay fikradaha ay ka qabaan dhalinyarada nagu soo baraarujiyay barnaamijkan waxaad ka daawan kartaan somalibartel.mdico waxaan kaloo dhigaynaa YouTube ayaan dhigaynaa tan kale waxaan soo sii dayn doonaa markaan turjumno oo aan u helno maaragtay inaan hoos ka turjumno halkaas waxaan kusoo gunaanaynaa barnaamijkeennii waa mahadsantihiin amaana Allah